trade agent baan nahay oo dilaalin baan nahay si kala hadaan u dhigno oo waxa weeye ganacsatadii Soomaaliyeed ee kuwa waaweynaya kuwa yaryarba inaan ku caawino in wadanka dibadiisa ay wax ka soo iibsadaan kalsooni intee leeg bay kugu qabi karaan bulshadu maadaama inta badan marka social media-ga waxyaabaha online-ka suuqgeynta online-ka waxyaabo badan dadka oo ay lagu kala dhici karo ganacsiyada inta deegaanka aan kala shaqeyno waxa intay doonto ka badan oo la oran karo 10 jibaar way ka badan yihiin ganacsiyada dalka aan ka shaqeyno saldhigood iyo magaalada Addis Ababa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا وناسان درهانتين با داود المير والباد جوجتان كسو دواده برنامج gaar ah oo ku faraqeyn doono dhanka teknoolajiyada isla barnaamijkan ayaa waxaan qayb ka oo igala qayb qaadanaya Maxamed Shariif oo ku takhasusay sameynta curina qaybo kamid ah applicationada ama dhanka teknoolajiyada software-da isla markaasina ganacsiyo oo abuuray si markaasi uu bulshada ugu adeego waa ku naasiyay sida qiimaha badan oo soo qayb qaatay Maxamed ee waqtigan ugu hortay soo kale barnaamijka waxa qayb ka ah ustaad Maxamed Subagle oo isagoo markaasi qayb ka barnaamijka isla markaasina ah gudoomiyaha shirkadda Link ganacsiga iyo dhoofinta alaabaha suuqeynta online-kana qayb weyn ka qaata isla markaasina waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshaduna aadka u tabayso ee gaabka badan ee jira ay markaas buuxinayaan hawlahan dunida caalamkuna ay waqtiga had lagu jiro dhankaasi hadda uu wareegayso online-da iyo suuqgeynta dhankaasi waxaan jeclaan doonaa khibradooda iyo aragnimadooda bal aan la wadaagno bulshadana ay u fiican qaabkay markaasi iyagu u shaqeeyaan si jiilka dambe ama dhalinyarta soo kacaysa ama dadka hal abuur kale noocan oo kale ku jiraan bal inay tabta ay nimanka ay walaalahan ay sameeyeen oo kale iyaguna ay ka tixraacaan marka hore waxaan ku soo dhaweyn doonaa Maxamed Shariif Maxamed barintan u gadin barnaamijkeenan runtii in muddo ka soo shaqeynaysa barnaamijkan dhanka teknoolajiyada oo soo waday ganacsiyo badan oo noocan aad kaga soo shaqeysay bal marka hore ujeedka guud ee uu asaastay bal maxaa ugu dhali waa mahadsan tahay aad baan ugu faraxsanahay inaan mar kale ka soo muuqdo 2 sano kadib warbaahinta deegaanka ee SRTV teknoolajiyadu sideedaba waa tool aad muhiim ah xilligan taasoo saameyn ku leh dhan walba xitaa qofku inuu fikrad ku dhalatay marka qaar xasdada muhiim ma si aha waayo waxa kugu dhalin kara wixii aad isticmaalayso technology deviceski platformski bulshada aad ku jirtay wad arkaysaa in maalin ka dambaysa dhaqamigii laga guuray oo serviceadii hore u jiray ay technology ku dabaqan yihiin warka waxyaabahaas leedahay markii aad asaasay shirkadda asaasay way kugu curiyeen ama wad ku dhiiratay inaad samayso waxa kamid ah okay su'aal wanaagsan shirkadda waxaan aasaasay 15 September 2022 waxyaabaha igu dhaliyay waxay ahayd anigii oo xirfado teknoolojiyadeed oo xirfadayda markaas soo dhaweeyay software engineering oo si personal ah taban anigu isku baray dan iyo baahidii loo qabay shirkad bixisa adeegyada teknoolojiyada oo xilliga aad uga jirta deegaanka ayaa isku kay qabtay dan waxaan go'aan ku gaaray inaan shirkadda Dafro waxay qaadatay magaca Skill Up waxay deegaanka ka shaqeynaysaa muddo 2 sano ah waxay almost la shaqeysay konton kamid ah ganacsiyada ugu saameynta badan dalka oo manufacturer leh oo real estate leh oo dugsiyo leh oo leh agricultural leh oo dhammaan waxyii kala duwan ee ganacsiyada leh xilligan la joogo 17 ganacsiyo shirkadu gacanta ku haysaa suuq geeyntooda iyo maamulidooda baraha bulshada inta in leeg bay shirkadu adeegyadooda bixisaa marka oo xilligan ka adeeg qaata haday tahay naqshadeyntii haday tahay marketingkii haday tahay dhisidii software-rada applicationada iyo website-daba qodobadii aad cuskatay markii aad fikirkaas kugu dhashay caqabado badan ma kala kulantay dabcan caqabado way jiraan kolka ugu horeysa caqabada weeyda khibrad yarida marka tahay qof iska yar oo business kana soo galaya challenge baad galaysaa anuse waxaan aad ugu faraxsanahay oo ka faa'iideystay network-ii aan lahaa asxaabtaydii oo kale qof waxaan u diray inuu marka branding ka soo sameeyo bilowgii horeysa maalmihii hore qof waxaan u diray inuu soo qoro shuruucdii maalgelinta qof waxaan consultation-kii qaar waxaan u dhiibay barihi bulshada inay marketing ku sameeyaan anigii dadkii baan la sii wadaagay marka caqabadaha ugu yar oo khibrad yarida dhanka suuqa kolka laga imaado waxyaabaha kale waxa ahaayeen waxyaabo iska fudud oo aan anagu la dhiil gareyn karno
deegaankuna dabcan si wanaagsan buu noo soo dhaweeyey ganacsiyadu markii koowaad baa trust wayna siiyeen oo way nagu kalsoonaadeen aakhirkiina tayadeennii baa go'aamisay inaan ilaa maanta wada shaqeyno waan kusoo noqon doonaa waxaan siin doonaa ustaadka ustaad runtii waxaa tahay guddoomiyaha shirkadda link market link aan idhaahdee ama ganacsiga iyo dhoofinta alaabaha suuqyada online-ka ah ayaad ku shaqaysaa muddo intee leeg baad ku shaqaynaysa aad u mahadsantahay Aftax waan ku dhawahay runtii TV-ga SR TV si gaarana waxaan u mahadnaqayaa walaalaha guday book fair oo runtii maanta madashan quruxda badan aan ku kulannay sabab u ahaa si guud su'aashaad weydiisay waxay soo hoosgalaysaa adeegyada ay bixiso shirkadda Market Link Commercial Sourcing and Shipping Services shirkaddan runtii waxay u taagan tahay inay bulshada Soomaaliyeed iyo si guud dunidaba ay u qabato 5 adeeg oo runtii muhiim ah adeega koowaad ee shirkaddu qabato waxaan nahay trade agent baan nahay oo dilaalin baan nahay si kale hadaan u dhigno oo waxa weeye ganacsatadii Soomaaliyeed ee kuwa waaweynaya kuwa yaryarba inaan ka caawino inay wadanka dibadiisa ay wax ka soo iibsadaan sida wadamada China iyo Dubai iyo Turkiga iyo kuwa kale oo anigu si shakhsi ah uga soo shaqeeyay kuwa ugu muhiimsan iyo ilaa dhowr iyo $10 kale oo hawlaha trade agent kan kaga soo shaqeeyay marka adeega koowaad ee shirkadda Market Link ay u qabato bulshada Soomaaliyeed waxa weeyaan waa inaanu dadkii inaan isku xidhno supplierkii wax laga soo iibsanayay iyo waxa weeye dadkii baahida qabay inaan isku xidhno وأنا هلكا أنت ولا حسان كوميشن أنا كهلنا ترانسبيرنا أنا كشقينا أو قف كستو وحدوني أن ضمانات نظام السيستم وحيسي وكهلي كانوا أنا أصمينا هذيك اللي بعد أنا قبلنا وحويا قف كمركو تشينا أنا وحجزو ابن أما طبعا أما مالكله إن أنا الشيب أصمينا وأنا هدي أنا بتيسي وبدأ دوني أنا بدأ أصمرنا هدي وعيرك دوني أنا فرايت كي ديارده أصو صارنا أنا قيمة معقولة وسيف أنا وحوي أصمينا adeega saddexaad ee qabanno waxa weeye custom clearance qofkii inaan isaga aanu tagin customyadii anagu cashuurtii aanu ka soo khalisno anagu garaashiisa haysanaa hadii uu dekada berbera ama dekada muqdisho uu doonayo inaan uga soo saarno hadii airportada uu alaabtiisu tahay in anagu airportkii clearance u soo sameeyno adeega afraad ee qabanno gaar ahaan deegaanka Soomaalida oo macaamiil naga xidhan yihiin halkana ka salaamayo waxaan u qabanaa wax la yiraahdo door to door delivery alaabtiisii inaan jigjiga dhexdiisa qofkiisa meheradiisii alaabtiisii loogu keeno adeega shanaad ee hadda aanu qabano adeeg dhalinyaradu runtii ay aad uga faa'iideen waxa la yiraahdaa shop and ship waxa qofkii dhalinyaradii Amazon iyo Alibaba iyo kuwa la midka ah iyagoo halkan jooga ay wax ka dalbanayaan mushkiladda haysatay wax weyn address inaan haysan marka addresskayga markay joogan addresskayga China isticmaalaan markii dibay ay Amazon wax ka dalbadaan addresskayga Dubai bay isticmaalaan kadibna alaabtii markii alaabtiisi ay magaciisa ku timaado oo la keeno warehouse-kaygi anaguna halkii uu joogay ayaanu ugu deliver gareynaa oo khidmad yarna aanu ka qaadnaa wana small business-ka dhalinyarada ganacsiga yar bilaabo dhan hadda saasan adeegaas runtii u qabanaa marka adeegyada shirkaddu inta ugu muhiimsan waa inta walaad ku maasantahay Aftax waa maasantahay si fiican bad runtii aad u ifsay laakiin kalsooni intee leeg bay kugu qabi karaan bulshadu maadaama inta badan marka social media-ga ama waxyaabaha online-ka suuqa geynta online-ka waxyaabo badan dadka ay lagu kala dhici karo kalsooni intee leeg bay kugu qabaan si qaabkeeday idin la soo xiriiri karaan dalabkiina ku heli karaan aad baad maasantahay horta dadkii inagu Soomaali markana waxaan iska nahay dad iska sensitive shuruucna badan kuma shaqeyno laakiin anigu arinta ka taxadarayna sababtaanu macaamiil badan ku helnay waxa weeyaan ganacsiyada wixii waaweyn oo kale damiino maal wax la dhaabaan u sameynaa oo qofkiisi waxa weeye meel wixiisi u raaci karo marka qaarkood waxaan sameynaa inaan anagu qofkan inaan lacagtaada meel dhig contract aan la galno taayada anagu lacagteeda inaanu ku soo shaqeyno markuu alaabtiisi intuu soo itaabsi u arko inaanu lacagtii aanu ka qaadano wixii online-ana Amazon iyo Alibaba iyo kuwa hadda waxaan soo wadnaa platform annagana laga sii dhexgalayo oo qofku awood u yeelanayo inuu e-bill ku bixin karo lacagtiisa ama saad ku bixin karo ama e-dahab ku bixin karo ama waxa weeye M-Pesa uu ku bixin karo wadnaayo oo si dhalinyarada caqabada ay ka haysatay kaarkii lacag bixinta aan uga fudaydino marka barnaamijkan insha Allah dhawaan sanadka cusub waxaan sheegnaa 2025 bishii koowaad
in la daafuraan rajaynayna. bal ka waran macaamiisha ama kala duwan ilaa waqtiga aastan hadda farqi intee u dhaxeeya wallahi macaamiishaydu runtii way fiican yihiin deegaanka Soomaalida oo dhan way joogaan dadkina maanta alxamdulillah tiknoolajiyada aad bay uga faa'iideystaan dhalinyaradu waxaan u soo jeedaan inay waxna ku iibiyaan waxna ka iibsadaan. maanta waxaad meesha ku soo bandhigteen oo qayb ka ahaydeen marta sharaftii lagu sharfay book fairka ka qabsoomay magaalada Guday ama bandhiga buugaagta dad kala duwan bay yimiday idinkuna qayb baad ka ahaydeen mawduuca aad xooga saarayseena waxa uu ahaa dhanka tiknoolajiyada bal tiknoolajiyada waqti lagu jiray dadkeena bal markaad saa u daraasto maxaa kaaga soo baxay wallahi ni horta tiknoolajiyadii maanta waxaan ku noqonay mudmin wax la yiraahdo waynu la noolaanay oo waxa qofkii mar kasta telefoonkiisii u soo isticmaalay marka anagu waxaan ka fikirnay sidii hab positive uu qofkii wacyigelin ahaan iyo shaqo ahaan iyo ganacsi ahaan si positive uu uga faa'iideysan lahaa kulli baalkii la deyn maayo laakiin salaaxii sidii lacag uga sameyn karaa ayaan ka fikirnay marka mawduuca book fairka nagu soo qoray wuxuu ahaa panel discussion ku saabsan raadka ay ku leedahay tiknoolajiyadu horumarka dhalinyarada iyo suuqeynta wax soo saarka ayaan ka hadlaynay runtii waan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay fariintaasi gudbi doonto SRTV-na oo naga bahadnaqaynaa inay fursad loo siisay arintaas waxaan ku soo noqonay Maxamed ustaad Maxamed waxaan ku soo noqonay Maxamed Sharaf Maxamed runtii waad la socotaan maanta qaybaad ka yeedan marti sharaftii lagu casuumay bandhiga caalamiga ah buugaagta Guday si bal idinkuna waxyaabihii aad hayseen aad ula wadaagtaan bulshada muddo badan baad hadda 2 sano jeclahay saad sheegtay inaad 5 sano jeeda ayaad ku dhawdahay intaad soo shaqeynaysaa bal 5 sano intaad soo shaqeynaysay 5 sanaan ku jiray technology-ga labada sano dambeeyna shirkadaha aan ku shaqeynay waxyaabaha aad ku gaarkay curisay maxaa kamid ah shirkadda waxay leedahay software gaar ah leedahay oo SaaS projects ah si gaar ah waxaa jira adeegyada anagu leeyahay oo qaar kamid ah fintech insha Allah rajaynaya sanadada soo socda inay suuqa soo galaan adeega Muraad Bay kamid yahay waxyaabo gaar ah oo anigu shakhsiyan soo sameeyay oo waxaa jira waxyaabo hore u baxay iyo waxyaabo insha Allah rajaynayo inay dib ka soo baxaan laakiin inteeda ugu badan wixii tamar tiknoolajiyada lahayn shirkadda isku geynay taydii shakhsiga ahaana way garab socotaa iyaduna waa mid meesha ku jirta marka hawlahan oo kale aad abuurayso waxaad u baahan tahay ila dhaqaale u baahan tahay dhaqaalaha ay ka yeeshaan ku sameyn karto waxyaabahan waa caawisa ma jiri kartaa literally ma jiraan adigu dad aan imika sheegi karo si toos ah ila dhaqaalaha korka laga imaado family-gii laakiin iyada un baa shirkadda iswada oo si wanaagsan u shaqeysa intii iyada lagu horumarin lahaa iyo in dheeriyaba soo saarta wana rajaynayaa in insha Allah bilaha soo socda sanadada soo socda darajada ka badan ay hanan doonto marka qaabkee u shaqeysaa shirkaddu imika hadda shirkaddu imika waxay u shaqeysaa in si guud horumarinta ganacsiyada waxaan kala shaqeynaa ganacsiyada inaan u dhisno website-ada application-ada waxaan ka caawinaa suuq geynta waxaan ka caawinaa maamulidda barahooda bulshada oo xilligan la joogo ganacsiyo aad u badan gacanta ku hayno oo sector walba oo business ku leeyahay kamid ah haday tahay real estate agriculture dugsiyo waxa la dhahaa manufactural iyo waxyaabihii petroleum suppliers engineering iyo waxyaabihii lamid ah marka ganacsiyada si guud waxaan ka caawinaa wax walba ay uga baahnaayeen shirkad teknolojiyadeed hadday xitaa tahay oo aan ka caawinaa inaan shaqaalada training siino inaan digital IT consultant siino oo la talino oo la shaqeyno oo kala talino sidii iyagoo technology-ga isticmaalaya ay ganacsiyadooda u horumarin lahaayeen service-ka ugu badan ee shirkaddu xilligan qabato kolka waa suuqgeynta waxaana soo raaca dhisidda website-ada iyo application-ada software ama application-ada aad sameysay ma jiraan wali cidinta qaatay isticmaashay dabcan software-radu waxay u qaybisan yihiin laba wixii business u samayso ganacsigii lahaaba isticmaala oo waa business privacy badanaad in maxaa la dhahaa software-ka iyaga isticmaalaya mar alaala markaad ku wareejiso haddii iyagu kuu tala saartaan inaad u maamusho maintenance-goodana ku darsataan oo halkeeda haddii kalena kolkaad ku wareejisa adiga xog ahaanka ugu dambeynaya iyagana maamulanaya software-ada shirkaddu leedahay waxaa kamid ah adeegyo iminka soo socda oo midkii u horreeyay iminka tijaabadii ka soo baxay oo school management system oo school bila la dhaho insha Allah sanad dugsiyeedkan aan rajaynayo inuu la bilowdo dugsiyada deegaanka in ka badan ilaa 6 iskuul oo deegaankaana aan qorsheynay inaan
qaarna la fadhiisanay qaarna la fadhiisano maalmaha soo socda wixii intaa ka dambeeya kolka tijaabada dugsiyadaas ka soo baxo aan usii gudbino deegaanka iyo deegaamada gaarka ah soo dhow adeegyada business managementiga iyo adeegyo kale oo shirkada gaar oo la karinayo oo miiska saarna way jiraan soo bixi doona insha Allah. Axmed, software-da aad sameysaan dadka miyaad ka iibisaan oo bulshada idin adeeg doonata ama qofka shakhsiga u baahan inuu shirkad furto ama wax furto miyaad ka iibisaan mise si mutaadinimo ah ayaad u siisaan? in mutadaacnimo la sameeyo waa wax wanaagsan laakiin kolka business uu waliba start up yahay adeegeeduna yahay inay adeeg bixisaay dabcan software-rada ugu badan aan ku sheegayo SaaS projects-ka in nalaga adeeg qaato system anagu lana la isticmaalayo waa qorshaheena 2025ka imikana almost laba soo baxay mid baa imika testingkii taagan midna deploymentkii iyo kolkuu kan tijaabada ka baxay isagana sii deyn doonaa systemyada kale mid walba ganacsiga u baahan software waa u sameynaa waa u dhisnaa website-da waan u sameynaa ganacsiyada application-ada waan u dhisnaa application-ka iyo software-ka la dhisaayo wuxuu gaar u noqon doonaa maalinta laga bilaabo ganacsiyada kale anaga waxa kaliya noo qabanaya waa in portfolio-deena soo galo wax inta ka baxsiisan oo anaga ku raad yeelanayna male haddii shirkadaasi noo tala saarato inaan anaga u maintain gareysno oo mentor noqono oo gacanta ku hayno oo cilad saarno oo horumarino software-kaas oo heshiis kale gaar oo sii dhaco waa si wanaagsan anaga hayna haddii kale software-ka maalintaan anaga u dhisno business-kaas buu inta badan gacanteena ka baxaa software hadday noqoto adeeg laga qaadanayo anagu leenahay dabcan kiray noqonayaan ama billayaal ha noqdaan ama sanadla ha noqdaan adeegyada SaaS project-ga shirkaduna billayaal weeyaan hadday yihiin kuwa dugsi loogu talagalay kuwa ganacsi loogu talagalay iyo industry-ga kale deegaanka mid walba loogu talagalay. Bal ka waran bulshada deegaanka Soomaalida marka saa u eegto inta muddo shaqeynaysay qaab noocyada sarana uga faa'iideysteen ama se fariimaha aad heshay kadib wallahi bulshada deegaanku almost kolka la dhaho shirkad tiknoolajiyadeed waqtiga waxa ugu badan waxa ku soo u baahan shirkadaasi waa in qofka horta uu ogaado de baahida uu isagu qabo anagu ma aan ahayn dad u shaqeeya personaliga aad bay u yareed inaan B2C noqono B2B baan ahayn oo business to business baan ahayn anagu ganacsiyadan aad ula shaqeynaynay ganacsiyada inta deegaanka aan kala shaqeyno waxa intay doonto ka badan oo la oran karo 10 jibaar way ka badan yihiin ganacsiyada dalka ka shaqeynay saldhigoodii magaalada Addis Ababa sababtuna waxa weeyaan inay iyagu ay garanayaan tayadii inay garanayaan inay adeegyadan u baahan yihiin inay maxaa la dhahay fahamkooda ku salaysan tiknoolajiyada iyo shirkadahan sida loola dhil gareeyo loo shaqeeyo aad wanaagsan ganacsiyada deegaanka qaar badan baa la kulanay kolka laga reebo ganacsiyadan anagu noo imaado in la shaqeyno almost qaar kamida kuwii nala bilowday ilaa intooda badan inaa iyagu joojiyaan service-kii caadi ahaan mooye almost way nala wada shaqeeyaan intooda badan marka baraarugaasay ku xidhan tahay laakiin waa la soo fahmayaa maalinta ka dambeysa deegaanka wuu soo fiicnaanayaa waa la dareemayaa baahida shirkad tiknoolajiyadeed oo ganacsi walba ay u leedahay inuu shirkad tiknoolajiyadeed la shaqeeyo. Book fair-ka magaalada Goday yaad hadda ka soo qayb gashay san jeclay buug horena waad ka qayb gashay maxaa kaga baxay maanta fikir wallahi horta kan wuxuu bandhigay koobaad ee buugaagta ee ka soo qayb galo xaqiiqatan waxay ahayd soo dhaweynta haday noqoto waxaa la oran karaa sida ugu quruxda badneed ee loo soo dhaweyn lahaa wafti ama loo soo dhaweyn lahaa marti yana loo soo dhaweeyay magaalada marti dadkii bandhiga qaban qaadinayo aad aan u bogaadinayo way u hagar bixin dadkii meesha imaaday magaaladu saan filaynay iyo si u dhow baaxad ahaan iyo horumar ahaan iyo bulsho ahaanba aad bay uga wanaagsan tahay bandhigan wuxuu aad u khuseeyay waxna sida ciwaankiisa waxna baro waxna beero dhalinyarada gobolka Shabeelle intii magaalada Goday ee bandhigan panel discussionadii dhacay iyo bandhiga buugaagtana waxaan isleeyahay waxay boost gareyn doontaa oo barigan taali doontaa fahamka ay dhalinyaradu ka haystaan akhriska waxbarashada xirfadaha dhankii kale oo ah in laga faa'iideysto macdantii shidaalkii wax soo saarkii dalka dalagii anything sida uu ahaa mowduucyo isku laraya labadaas oo dhan waxaan oran karnaa heer sare u ahaa bandhigani. Ustaad Hussein oo kusoo noqon doona gudaanada doona barnaamijka inta laakiin gudaadin waxaan jecelahay inaan ustaadka laba su'aal weydiiyo. Ustaad shirkadda Market Link ee gudoomiyaha ka tahay hadafkii aad u asaastay ma ka mid dhalisay ilaa waqtiga hadda aad u wanaagsan tahay shirkadda Market Link
kulli baahi baa keentay baahidaasoo ah inaynu deegaanadeena Soomaalidu ay si toos ah adeeg isku wada xidhan oo ka soo bilaabmaya supplierka wax iibinaya ilaa iyo qofka gurigiisa inaan isku xidhno oo anagu dhammaan adeegyadii oo dhan aan linkigaas isku wada xidhno wax sahlan kulli ma ahayn marka horta baahida keentay waxa ahayd baahi aan anagu aragnay anaga hortayna shirkadaha hore ay sameeyeen laakiin aan si la rabay aanay ugu guuleysan anaguna ilaa hadda waxaan oran karaa 80% waa la gaaray laakiin insha Allah 20% ugu hawsha badnaa baa haray waana rajaynaynaa insha Allah taala inaan ka hadhi doonin oo aan ka gaari doono ilaa inta laga gaadhay waxaa jirta in deegaanka marka la soo noqono ka soo meelaha kale accesska internetka waxaad moodaa in sidii meel loogu talagalay inuu gaadhin idinkuna shirkad ahaan waxaad ku shaqeysaa online caqabad ma kala kulanteen halka wallahi deegaanka labadii sano u dambeeyay baan ka shaqeynaynay aad buu fiicay internetka deegaanka runtii xawaarihiisu aad buu u sareeyaa dhalinyarada deegaankuna runtii social media markaan eegno statisticska maarta qiimeena iyo inta meelaha aadka looga isticmaalo deegaanka Soomaalida baa kamid ah marka deegaanka Soomaalida hadda waxa isleey waa laga baxay xilligii internet laantu ay haysatay waxa qabadana laga haysto arintaas dalabku marka la leeyahay kama iman kaliya magaalada caasimada wuxuu ka imanaa meelo fog oo kamid ah deegaanka meelahaas waxa laga yaabaa accesski in marka idinka leedin baahdo meelaha aad ku leedihiin baseska ama idin joogan wakiilada idin joogan ay ka rabaan shakhsiyadaas deegaanada qaab haddii internetka uu shaqeeyo qaab kale ma jiraan oo idin soo xiriiri karaan waan rajaynaynaa deegaanada kale uu ka jira laakiin deegaanka Soomaalida hadda kama jiro waan rajaynaynaa inaan call center sameeyno dadku ay dalabkooda ku soo ridaan hadii la haydaan laakiin hadda ma jiro goobaha fog ma fududay ma qorshaha ma awood ma u leediin fududan kartaan ama higsigiinu ma awoodaysan dhaqaalahaan inaad fududan kartaan ama soo kale wallahi hiisigeyga horta insha Allah waa global inaan dunida oo dhan insha Allah aan saameyn ku yeelano si step by step aan kulli ku wadnaa deegaanka Soomaalida waxaan doonaynaa meel haba inaan ka sameeyno oo iyadu base u noqoto inay si gaarsiiso deegaanada kale marka meel dalab ku soo dhaco deegaanada kale oo dhan laga gaarsiiyo waan rajaynaynaa insha Allah in la sameeyo waxa book fair ka iyo marti ku hayd oo lagu casuumay adiga mawduucaaga wata shirkadaada matalaya oo yad lagu xasuumay bal fikirkii hadda ka horeysatay iyo maanta bal ka hor wallahi safarkan igu horeeyay Nairobi baan maalmahan joogay ilaa 2 bilood oo aan barnaamijyo waaweyn ka qabanay markii la iga soo casuumay goday xiisa gaar ah ay sameeyay inaan deegaanka Soomaalida inkastoo meel badan ka gaaray laakiin goday hadda ka hormaan iman marka godayna waa magaalo ku astaysan halgan iyo isbedel horumar iyo nololeed oo meel taariikh taariikhdeedu aan sahlanayn marka wixii aan kutubta ka akhrin jiray iyo dhacdooyinkii ka dhici jiray ayaa practical horta u arkay dadkeedu inay gob yihiin waa ogaa gobonimada iyo waxa weeye luqadda waxa la gobonimada iyo qofa gobonimada iyo magaalo aan aragnay marka goday runtii si weyn bay noo soo dhaweysay waan rajaynaynaa inaan ku soo laaban doono hadii la helo maxaad ka dhaxashay adiga oo kaaga baxay waa joogtay madasha qaarna leefad kala socotay cilmi ka korasta adigu niyo cilmi kaliya kama kororsan laakiin waxaan arkay waxaan deegaanada Soomaalida intaan maray ku soo arag waxaan soo arkay bariiskiisaan wadayay maaragtay fahmi lahaa waxa la deegaanku ka soo baxay marka arinde sahlan maaha in bariiskii oo qututururigi nolosha waxyaabo ugu muhiimsana inay gudi maanta uu ka soo bixi karo marka halka rajo weyn bay gashay oo ah in deegaanka Soomaalidu uu dunida oo dhan u qoodin karo baa ii soo baxday waana wax dhacday runtii la yaab leh fruitkan culinay iyo khudaartan culinay deegaanka ahayd cuntadii wadaniga ahayd ee culinay deegaanka ahayd bariiskiina deegaanku noqday marka hadii noloshu wixii la raadinayay waa gudi marka waxaan leenahay insha Allah taala gudi hal maal gashado qurba joogta iyo qulqul joogta iyo dawladdu baa wax rajaynaynaa in si gaar ah ugu hayso gobolka Shabeelle si gaar ah inay gudi ay si gaar ah ay uga warayso waxa shaf ganaadkii barnaamijka joognaa gudi waa timid waxaan jeclahay safarka ugu horeeyay tahay wal fikirkaad ka haysatay iyo maanta maxaa kaaga baxay adiga gudi madawada markii kugu horeysay tahay gudi meel ka cilmi duwan ay tahay jawi ku leeyahay hadda waqtiga ku sugan tahay maxaa isla kaaga baxay wallahi hal present oo xitaa kamid waxaan ka fiilay
100% 99% uu ka fogaaday filashadii aan ka qabay goday sidii noqonayso hadday tahay gobonimada dadka hadday tahay magaalo ahaan sidii u weyn tahay hadday tahay resourciga ay leedahay siduu maxamed sheegay oo kale intii aan joognay inta badan fruitka iyo waxyaabahan isticmaalayna waxyaabo deegaanka u ahaa haddana qiimo jaban haddana dee bulshadii aad meeshaad fadhiisataba dee bulshaawi oo macal habeenkii la iska caawinayo waxaan odhan karaa waa magaalo bulshaawi ah waa magaalo tayo leh waa magaalo mustaqbal potential ganacsiyo wanaagsan leh aan rajaynayo in dadka deegaanka iyo dadka kaleba ay indhaha intay kusoo eegaan maalgashadaan talooyinka aad siinayso dhalinyarta aqoon-yahaninta hal-abuurada ganacsiga iyo adigu aad isleeda maanta waad la wadaagi kartaa madasha buwaagta caalamiga gudayna waad kaga faa'iideysan kartaa waad u dhexmarin kartaa maxaa kamid kulle wixii talaa way baxeen waxaan si ka dabageynayaa in dhalinyaradu xirfadaha bartaan aqoon ahaan isdhisaan dhulkooda aaminaan isku dayaan sidii bulshada dalka iyo kuwa caalamka ay wax la qaybsan lahaayeen maasante axmed hadda laba daqiiqo ku sii runtii aad baad mahadsan tahay su-aalba su-aasha ka muhiimsantii baad soo qabanaysaa waa kaaga mahad celinaynaa dhalinyaradu runtii waa awood waana maaragtay wixii aynu maanta dee waddankeenan aynu macnaha u sameynayay ummadna haddii generationka soo kacaya waa rajada ay qabaan marka waxaan rajaynayaa qofka dhalinyarada maanta halkan iga dhegeysanaya inuu noloshiisa 3 su-aalood isweydiiyo inuu isweydiiyo ayna ana al'aan maanta halkeen jooga horta inuu si sax isku weydiiyo aqoon ahaan caafimaad ahaan dhaqaale ahaan yacni qoys ahaan halkuu taagan yahay inuu isku qiimeeyo waa qodobka koowaad ee kula dardaarmay qodobka labaad ee dhalinyarada kula dardaarmay waxa weyn isweydiiyaan ayna uriido aan asil halkeen rabaa inaan gaadho waa inuu cadaato exactly meesha u socdo kadib waa inuu isweydiiyo kayfa asilu ilaa maa uriid sideen u gaadhayaa meeshaan rabo inaan gaadho mar kasta oo saddexdaas arrimood cadaadaan oo mar kastoo dhalinyarada rajadoodu fiican tahay kadib markuu saddexdaas su-aalood kasoo weydiiyo waxaa muhiima inuu noloshiisa hadaf cad yeesho oo uu kala saaro riyada iyo hadafka hadafku waxa weeyaan waa wixii waxa weeye waxa weeye maaragtay inuu environmentigiisa qofka uu ku dhisnaado deegaanka ku nool yahay laba inuu qayb yahay oo hadaf diineed hadaf caafimaad hadaf waxbarasho inuu saa u qayb yahay kadibna waa inuu ku xadidan yahay zaman oo aan wax iska furan aanu ahayn wax la qiyaasi karo la fulin karana waa inuu noqdo ugu dambeyntii dhalinyarada waxaan kula talinayaa nolosha qofka doonaysana adaa noqon kara nolosha doonaysana adaa ku noolaan kara taasina gifti maaha wax la yiraahdo ku garanay ya wax la yiraahdo inta qof laguma soo qaadi karo laakiin waa lagu saacidi karaa dad gacanta soo taagto waa lagu dhufan karaa laakiin dhulka laga soo qaadi maayo marka waxa weeyaan inaynaan cid waxba ka sugin isbedelku inuu adiga ka bilaabmo halganka nolosha adu ay soo saarto taasaan runtii aan kula talinay ilaahayna inaan tala saarano oo ilaahay ku xidhnaano way dunida ilaahay baa ka taliya subxaanahu wa tacaala ku doonana ilaahay isaga ciseeya ku doonana ilaahay isaga duleeya ku doonana ilaahay isaga wax siiya ku doonana ilaahay isaga qadiya marka in ilaahayna ay dhalinyarada ku xidhnaadaan waalidkana ay ka ducaystaan oo runtii meelaha wax badan ka qaldayn waalidka ka mid ah waalidkana in laga warhayo riskigana in la qaato oo cabsida la iska yareeyo hadallada dadkana inaan loo jilicsanaan way hadalka dadku ma dhamaanaya aftaxu maanta haddaad wanaag samayso dadku way hadlayaan haddaad xumaan samaysan way hadlayaan haddaad iska aaminsan waxa ku leeyahay aftax bilaa ilaa misay riyaha warba musoo diin bay leeyihiin marka inaynu qofku uu mas-uuliyad markaad maanta mas-uul ka noqoto guushaada iyo guuldaradaada ayaa runtii aada hore u socon kartaa waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaynu ka shaqaynayno iyo moralkeenu inuu islahaado aad baa mahadsantihiin s r t v وهيك آدي أدنى ما سنتهين وقتها قيمها بدن نهارتين وحان أمهد علينا محمد الشريف ورنتي هالابور وناقصن وفيعن لي مدي جناس فيعن ونكا دليرتا وقتها قيمها بدن نهاري فكرة الثلاثة هو ناسين لو داقي وكم ونقوم هسيهاي ونقوم علينا محمد سوقنا برامجك قيب كاها ويسوقنا قدوميها شركة ganacsiga caalamiga ama markaan soo gaabno shirkadda market link uu gudoomiye ka yahay waana hal abuure ganacsi oo wanaagsan waqtigeena loo baahan yahay barnaamijkiisu iyo ganacsigiisu ay yihiin waqti xadarka la shaqeeya oo kuma yihiin waqtiga qiimaha badan ee noortan barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo cad fataaxada dhanka kaamirada waa haykal inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinku dhaafinaa nabad ahaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته